wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya u wada socda aad baan u farxay markii la maqalnay aadna way u wanaagsan tahay in bini'aadamku uu wada hadlo haddii la wada hadlo oo heshiis baa la wada gaaraya heshiiskaasna in lagu wada dhaqmana aad bay waajib u tahay heshiisyada ay wada gaareen labada xubin ka kala socda ayaga wada saxiixay ayaga waxay u arkeen dantooda inay ku jirta inay heshiis ay wada gaaraan ee ku wada heshiiyeen qodobadaasina waa qodobo ayaga ka soo shaqeeyay oo ka baalandigay aragtidoodii markay miisaameen ay falanqeeyeen waxay soo saareen qodobada hadda ay ku heshiiyeen xildhibaan xasan maxamed idriis ayaa mar kale weydiiyay qodobo 7 ah oo ka soo baxay shirkii ka socday dalkaasi Turkiga ee u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya iyagana sida uu arko qodobada ka soo baxay shirka 7 dhowr qodob oo muhiimsan nabadgelyada burcadbadeeda dhaqaalihii in la wada wadaago arrimo kale meesha ku jira tusaale ahaan hadaan ka soo qaadno nabadgelyada adduunyada waxa way bini'aadamka saldhigiisa iyo noloshiisa beeskiisa waa nabadgelyo hadduusan nabadgelyo uusan haysanin nolol ma jirto anigu waxaan u baahanahay inaan noolaado aan nabad aan ku noolaado aad iyo aad baad u mahadsantahay xildhibaan xasan maxamed idriis oo isagu ka mid ah xildhibaanadii dowladihii ku meel gaarka ah ee dalka Soomaaliya haatana isagu degan dalkani Jarmalka Mustafa Xaaji Aadan Hon Cable TV Jarmalka